السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك على يوتيوب channel كيغا muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa maanta jaamacadaha Rwanda ku yaala iyo waxbarashada Rwanda qiimaheeda. Marka jaamacadaha Rwanda ku yaala waa fara badan yihiin, waxay bixiyaan koorsyo fara badan oo ardayda Soomaaliyeed aad uga faa'iideysan karaan, qiimahooduna aad u jaban yahay, waxbarasho tayo leh. marka waxa muuqaal ku saabsan sida loola soo baxay admissionka. haddaba si uu ardaygu admission ula soo baxo jaamacadda Rwanda ku taala wuxuu u baahan yahay dhibcihiisii high school hadduu degree bilaabayo, hadduu master bilaabayana dhibcihiisii undergraduate-ka kusoo qaatay bachelor ku baahan yahay. wuxuu intaa dheer u baahan yahay inuu apply gareeyo warqad la yiraahdo equivalence oo qofkii Rwanda aan wax ku baran loo convert gareynayo dhibcihiisa Rwanda system. intaas uu baahan yahay marka ardayga jecel inuu wadanka yimaado, wadanka waxbarashadiisu aad bay u jaban tahay. 450 ilaa 500 oo dollar ayuu sanadkii ardaygu waxbarashadiisa ku dhammaysan karaa marka medicine laga reebo course kasta oo kale oo jaamacaduhu bixiyaan. marka waxaan leenahay ka faa'iideysta ardayda lacag badan oo ka qaata Kenya iyo Kampala meelaha ka yimaadaan Kigali yimaadaan marka qofkii caawin u baahan caawinana waanu saacidana. marka la socod wanaagsan dhammaan asxaabta badan wixii arday Sharmaake waxaad ka mid tahay in ardayda Rwanda wax ka barata, bal waxaad wax yar naga siisaa oo warbixina Rwanda iyo sidaad adigu ku timidba oo sidaad ku timid iyo processkii iyo waliba waxaan jeclaan lahayn inaad wax yar oo xoog waliba naga siiso jaamacadaada dhigato, fakalada bixisa iyo qiimaha ku dhigata sanadkii. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة دي أطبع صاحب محسن تهاي مقعد وصف مارك فيصل علي. برتو أنا جو حسن كسب بروسيس كريي وحويان كسوت البداية جامعات وحويان قفل كان شوجا يا إيسوس صاري أنت كان شوجا من الله سوالي أو admission كي يو فانسي وحوي سود مية كدينا ده تيجي كم سوق قصتي أو وان إمي جامعات أنا توه على هذا يونيلاك بالله هذا waxaan ka mid tahay afarta jaamacadood ee ugu sareeya dalka sanadkii dhaweyd kaalinta afraad bay ka gashay magaranaysa rankiga dalka. waxa weeyaan jaamacadan waa jaamacad waxaan oran karaa ugu jabanba marka laga imaado jaamacadda qaranka. waxaan filayaa waa jaamacadda ugu jabanba jaamacadda private-ka. anigu waxaan dhigtaa deegaanka gaar ahaan emergency and disaster management. waxaan bixiyaa sanadkii adigu lacag cagacageynaysa $450 baa sanadkiiba igu baxaba. $60 baan bixiyaa ama lacag $40 gaaraysa bishii. waxa weeyaan waa jaamacadda environment-ga bixisaa sida emergency and disaster management. waxay kala bixisaa rural development, horumarinta reer miyiga iyo deegaanka. waxay kala bixisaa conservation-ka oo isagu environment la taxalluqa. waxay bixisaa kala qaybta computer-ga sida software engineering, IT-ga ayay bixisaa oo wax kastoo computer ku saabsan waa bixisaa. financial-ka wax kastoo ku saabsan waa bixisaa. waxay kala bixisaa resource management-ga waa bixisaa. project management waa bixisaa. marka jaamacaddu waxa weeyaan jaamacad aad u jaban, waxbarashadeedu aad iyo aad bay u jaban tahay maadaama ay Soomaaliduna ka mid tahay dadka East African-ka oo sanadkii 2023 December aan ku soo birnay ururka Afrika. Rwanda ay ka mid tahay dadka aad u tixgeliya East African-ka. waxaan la qiimanahay ama aan waxbarashadeedu la qiimantay ardayga annaga iyo ardayga Rwandiiska isku lacag ayaan bixinaa bisha isku lacag ayaan bixinaa. ardayda kale weynaga qaalisan yihiin oo double baa laga qaadaa aan ahayn East African-ka, laakiin Soomaalida iyo Rwandiiska waxa weeyaan iyo kuwa dadka kale East African-ka waxay bixiyaan lacag aad jaban oo isku lacag baan bixinaa isku xuquuq baan ardayga Rwandiiska. admission-ka oo kale waxa weeyaan 330,000 oo lacagtana adigu waxa weeyaan lacag $20 ayaa admission-ka qofka loogu soo saaraaba. marka jaamacadeedu waa sidaas. waxbarashadeedu waxa weeyaan aniga rankigeedana ka hadlay jaamacadda afraad dalka 2024 ugu sareysa weeye. marka qaybta deegaankana ka bartaa tobanka gudaha sax. aad iyo aad baad mahadsantahay Sharmaake. aadankaaga maxad celinaa soo quruxda badan ee aad uga warantay jaamacadaada waliba soo quruxda badan ee uga hadashay in Soomaaliya ka mid tahay African community-ga oo ardayga Rwandiiska iyo ardayga Soomaaliga ay isku xuquuq yihiin maanta. waxbarashada tayada sareysa ee qiimaha jaban ka faa'iideystaan. waxa kale oo ugu dar lahaa
ardayga marka soo apply garaynayo admissionka iyo gufaansiga marka hore waa in la soo saaraa, marka dambena admissionka la soo saaraya. ardaygu waxa kale oo muhiima ama waajiba inuu galo insurance sida guulada ogtay waxba laguma barto wadankan. marka insurance-kan waxay ka mid tahay jaamacadda oo uga jabanba waxaa la qaadaa 80,000 oo wadankana 80,000 waxa weeyaan baan filayaa $60 $60 baa laga qaadaa. $60 baa insurance sanadka ku galaysaa. qofka waxa laga 3 sano uu joogo 4 sano uu joogo, inkastoo oo sanadkan laga dhigay 4 sano oo 3 sano laga gudbay 4 sano laga dhigay 4 sano uu joogo 80,000 buu iska bixinaya insurance-giisa. waxa caafimaad kuga baahan yahay inuu taagi karaa. marka waa sidaa ardayda doonaysa inay soo apply garaysaan hadda wanaala soo xiriiri kartaa, waa gufaansiga iyo admission waan soo saari karnaa. aad iyo aad baan adigana kaa mahad celinaya saa quruxda badan oo wareegsiga noo siisay. aad baad u mahadsantahay.